qoor oo madaxweyne farmaajo ballan qaaday ciidamada habargidir difaac cusub iyo rajab mucaaradka lagu sameeyo markan maxaad kala socotaa daawade qorshaha qoor u maaday magaalada Muqdisho ciidan aroorsi oo ka wada caasimadan iyo ballan qaad weyn oo u sameeyay farmaajo warbixinteenan Milga TV ayaan ku eegi doonaa xogta iyo xaqiiqda ku aadan ujeedka qoor iyo taageerada farmaajo uu siinayo mucaaradkii oo ka yaaban tallaabada qoor uu qaadayo iyo xaalka oo markan isbedelaya warbixinteen ayaan ku eegi doonaa balse marka hore saaxiibayaal sheergareeya muuqaalkan oo like iyo love nasara si aan u guda galno faahfaahinta xogtan xasaasiga ah waa hagaag aynu ku bilownay madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoor oo soo gaaray xalay magaalada Muqdisho ayaa durba bilaabay dhabar jebinta mucaaradka iyo taageerada madaxweyne farmaajo qoor oo Villa Soomaaliya kulan kula qaatay madaxweyne farmaajo ayaa u ballan qaaday inuu gacanta u gelin doono ciidamada habargidir difaac cusub iyo dhabarjab mucaaradkana uu diyaar u yahay inuu kala qayb qaato mucaaradka Soomaaliya oo ku tashanaya ciidamada qabaa'ilada ayaa markan la kala jebinayaa dhammaanba qorshayaashoodii ciidan oo ay ku tashanayeen qoor ayaa ugu horeyn qaadaya tallaabo uu ku soo xirigelinayo ciidamada mucaaradka ay wataan ee beesha habargidir u dhashay si uu u qanciyo inay difaacaan dawladooda oo ay garabkooda noqdaan isla markaana beentii propaganda mucaaradka aysan ku biirin oo taageeraysan u muujin tallaabadan ayaa u muuqata mid lagu wiiqayo laguna soo ciribtirayo dhammaan qorshayaashii mucaaradka ay lahaayeen iyo in dagaal ay ka qarxiyaan caasimadan Axmed Cabdi Kaariye Qoor xaalka iyo dhinaca kale u gediyay siyaasadii gabadhacleynaysan markan dhan ayuu ridayaa oo mucaaradkii geedkii ugu dambeeyay harsanayeen ayuu calaamihii ka jaray qabaa'ilkii iyo ciidamadii ku tashanayeenna mid ayaa looga soo wadayaa ciidamada abgaalna waxaa loo diray Cali Guudlaawe halka ciidamada raxweynna loo diray Laftagareen taas oo ku muujinaysa in la ciribsiibayo dhammaan mucaaradka iyo halka ay ku biyashubanayaan ee qorshahooda dagaal Axmed Cabdi Kaariye Qoor madaxweynaha Galmudug ayaa sidoo kale ballan qaad u sameeyay farmaajo oo la xiriira in doorashada uu sii wadayo marnaba dhig jalaqoosan u siinayn qeeladhaanta mucaaradka iyo dalabkooda ay rabaan in doorashada ay ku boobaan xaalka ayaa markan isbedelaya mucaaradkii waa yaaban yihiin meel ay wax ka bilaabaanna waa la yihiin qoor taatikada siyaasadda nabad iyo nolol ayaa markan keenay qorshe cajiib oo lagu xubsiibayo mucaaradka iyo geed fadhigooda ugu weyn ee ciidamada beelaha ay ku tashanayaan saacadihii ugu dambeeyay kulamo kala duwan oo Muqdisho kula yeeshay siyaasiyiin saameyn ku leh siyaasadda ayaa soo shacbaxday qorshihiisan weyn ee dhabarjabka ku ah mucaaradka difaac cusub ayuu galayaa qoor si kursigiisa Galmudug uu sii xajisto ciidamadii beeshiisa oo idin lah gacanta ayuu gelinayaa farmaajo iyo Faad Yaasiin si looga hortago qorshaha mucaaradka isbedel ayaa muuqanaya saacadaha soo aadanna war weyn ee ka soo bixi doona dhanka iyo Galmudug haddaba daawade adigu maxay kula tahay sidee soo aragtaa qorshaha qoor iyo taageeradiisa farmaajo fikirkaaga iyo waxa ay kula tahay daawade ku reeb qaybta commentiga tan iyo kulan dambe nabadgelyo